wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa maanta Arbacada ku dhawaaqday in 3 cisho ugu dambeysay laga helay Somaliland 2 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 kadib baaritaan loo sameeyay ku dhawaad 400 oo qof. labadan qof ee laga helay xanuunka ayaa waqtigan ku sugan magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland sida uu sheegay mudane Xuseen Maxamed Yuusuf madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo ku sugan magaalada Boorama. maanta maalin Arbacada bishan ay tahay bisha 9 sidii caadadii ahayd waxaan doonayaa in aan ka hadlo xaaladii cudurkan COVID-19 cudurkaasi wali waxaan doonayaa inaan bulshada u sheego inuu cudur jira yahay dadna la helo. haddaba 3 cisho ugu dambeeyay waxa cudurka laga baaray 350 qof. 2 qof oo kaliya ayaa laga helay. 2 qof magaalada Hargeysa degan yihiin waana 2 raga وانا رئيس Somaliland ومواطنين Somaliland. 2 qof daadoodu 20 ilaa 29 weeye midna waxa weeye 40 ilaa 49 wax dhimashihi muddada ma jirin. haddaba tirada guud ee cudurka laga baaray ama laga shay baaray muddadii uu jiray cudurku waa 7350 tirada 7350 ah waxa cudurka laga helay 895 qof baa laga helay. dhimashada isugeyn intii cudurku jiray intii u dhimatay waa 30 qof. inta lagu xaqiijiyay inay cudurka u dhimatay tirada guud ee cudurka inta lagu ogaaday ka bogsatay la ogyahayna waa 889. dhammaan xaaladii guud ee cudurku ee wadanku waa inta waxa kaliya ku dari lahaa koow maadaama cudurkii wali dadka ku jiro oo wadanka ku dhex jiro cudur si sahlan la isku qaadsiinayna uu yahay in wacyi gelintii halkeedii laga wado dadkuna ay ku dhaqmaan. koow si joogta waa in faraha loo faraxasho oo biyo iyo saabuun loo isticmaalo. waa in la kala durko ugu yaraan 2 tallaabo. haddii aad banaanka u baxayso oo aad gurigaaga ka baxayso meel dadku joogo aad tagto asayna suuragal ahayn inaad kala durugtaan waa inaad mask mar walba aad xidhnaato. taasina way yareynaysaa cudurka kala qaadkiisii. haddii cid laga helay cudurka oo la yidhi gurigaaga iska joog waxa muhiim ah in qofkaas qof gaara la yiraahdo ha u shaqeeyo bulshada xaafadda ama qoyska intiisa kalena aanu ku dhaxmilmin. masqusha la wadaagayna qof kasta oo gala markuu ka soo baxo aw faraha dhaqdo. qofka xanuunsanayana si joogta intuu guriga joogo 12 cisho aw xidhnaado mask. Cabdirasaaq Cumar Micadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.